waxaan noo muuqata in heshiiskii la jabiyey laguna daray qodob aan ku jirin oo la yiraahdo dhagay kuma jiro heshiiskaas dhagay ma aqbalayno dhagay waa fidna wada dhagay waa qabyaaladiista dhagay waa nin nacab dadka gobolka gado war annagoo Soomaaliya joogno oo har iyo habeen u dhimanayno oo Soomaalinimada ogal oo xuduud difaacayno oo dadka naga loo laynayo Soomaalinimo darteed yaa dhagay noo soo diray dhagay dhag ma leedahay war dhagay oo dhug yeelo fidna wada tahay annaga dhagay dooni mayno dhagay haddii uu isku dayo waxa uu wado wixii uu nagu sameeyaan ognahay idaanadii uu noo geystay oo qurbaha uu noo geystay wallaahi billaahi dhagay iyo kuwa soo dirayba inay natiijo wanaagsan kala kulmayn halaag iyo hoog ayaa ka dhici doona Soomaaliya bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh waxaan rabaa inaan ka hadlo caawo sida horeba uu uga hadlay gudoomiyaha gobolka arrinka hadda taagan ee la xiriira doorashada Garbaharey waxaad ogtihiin Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waxaad wada ogtihiin in Soomaali ay heshiis muddo badan la dhiraandhirinahay ku gaartay magaalada Dhuusamareeb heshiiskaas oo loogu magac daray heshiiskii 17 Sebtembar heshiiskaas waa la soo afmeeray waxaana la geeyay golaha shacabka hortiisa heshiiskaas maalinkaas ayay xirantay in wax lagu daro waxna laga jaro waxaa noo muuqato in xafiiska ra'iisul wasaaraha uu heshiiska duleeliyay isla markaasna uu jabsaday heshiiska asaga ah heshiiskaas waxa waardiye ka ummadda Soomaaliyeed iyo daneeyayaasha doorashada Soomaaliya beesha caalamka safaaradaha cid kasta oo doonaysa in Soomaaliya doorasho ka dhacdo laakiin ra'iisul wasaaraha heshiiskii wuu duleeliyay wuu jabiyay sababtoo ah heshiiskaas waxna lagu ma dari karo waxna laga ma jari karo ra'iisul wasaaraha wuxuu ra'iisul wasaare noqday ayadoo heshiiskaas la saxiixay waxaana heshiiskaas wada saxiixay madaxdii madasha dawlad goboleedyada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha heshiiskii oo la wada gacanta laga galiyay mudane ra'iisul wasaare waa kan heshiiskii markii la magacaabay ra'iisul wasaaraha uu dhaartay kitaab Ilaahay buu maray wuxuu yiri aniga musharax ma ihi laakiin waxaan u cadeynayaa ummadda Soomaaliyeed inaan doorasho cadaalad ah dalka ka qaban doono cadaaladii ra'iisul wasaaraha uu ballan qaaday waxa kaliya ku dulman gobolka Gado ra'iisul wasaaraha sidaad ogtihiin doorashadii ka dhacday Galmudug oo deegaan ahaan uu ka soo jeedo muusan faragelin muusan tagin waxyaabo badan oo uusan jeclayn yaa ka dhacay meesha la yiraahdo Hirshabeelle doorashadii ka dhacday asagoo qaylinahay ra'iisul wasaaraha oo gudiye magacaabahay ayay qabsoontay waxna waa ka qaban waay sidoo kale Puntland doorashadii ka dhacday ra'iisul wasaaraha ayadoo dulmi iyo tacaddi ay dhibaato ay ka jirto oo wax la tabanayo ayuusan ka hadlin ra'iisul wasaaraha tii Kismaayo ka dhacdo foosha xumeyd oo ummadda lagu baabi'iyay dadkii musharaxiinta ahaa iyo ergadii iyo odayaashina ay ka tuuran yihiin Muqdisho iyo goobo kale oo ugaasidii iyo salaadiintii lahaa inay soo xushaan ergada laga ceyriyay raalli buu ka ahaa ra'iisul wasaaraha dadka gobolka Gado markii wax walba laga jaray oo la jafay heshiiskaas lagu dulmay 17 Sebtembar waxay qaateen 16 xildhibaan oo waliba aysan jeclaysan laakiin ra'iisul wasaaraha heshiiskii wuu jabiyay reegada ayagoo markii horeba wax tabanahay ayuu haddana ra'iisul wasaaraha heshiiskii 17 Sebtembar ku daray qodob aan ku jirin oo la yiraahdo dhagay qodobka dhagay la yiraahdo heshiiskaas kuma qorneen ma ahayn wax lagu heshiiyay dhagay xaquu ka soo galaya heshiiska 17 Sebtembar dhagay sidaan ognahay waa nin xasrad ka shaqeeyo waa la taliyaha ra'iisul wasaaraha wax aan fidna ahayna kulama taliyo waa ninkii ra'iisul wasaaraha kula taliyay in uu ka hor imaado madaxweynaha oo dagaal uu la galo waa ninkii ra'iisul wasaaraha kula taliyay
inuu xoolo iyo lacag ka raadiyo doorashada waa ninkii ra'iisul wasaaraha yiri sawirka madaxweynaha ka fuji xafiiskaaga ninkaan madaxweyne ma ahana ninkii magacaabay ayuu sawirkiisa fujiyay talada dhagay bayna ku timid waxa kale oo jirta dhagay oo qof walba uu og yahay markii qurbaha la joogay inuu beegsan jiray dadka ka soo jooda gobolka Gado asagoo markaas hayb ahaan u dacweynayo oo leh waa dadkii uu ka dhashay Siyaad Barre wayna dhibaateeyeen kanayna yeeleen nacaybka ninkan wuxuu bilaabay dawladda Soomaaliya burburin uu la burburay cuqdadii dibaddu la aad cuqdadii uu qabay meeshuu ka bilaabay looyarnimadiisii iyo wuxuu hayo dhan reegada inuu ku weeraro bilaabay qof kastoo reegada oo uu arko qurbaha joogo Canada waa la yaqaan wuxuu ka sameeyay wad ogtiin Mareykanka wuxuu ka sameeyay wad ogtiin Yurub wuxuu ka sameeyay warninkii nacaybka gaamuray u qabay gobolka Gado ayaa heshiiska 17 September lagu soo daray oo la yiraahdo waxaad ka mid tahay heshiiska 17 September waxa noo muuqata in heshiiska la jabiyay laguna daray qodob aan ku jirin oo la yiraahdo dhagay kuma jiro heshiiskaas dhagay ma aqbalayno dhagay waa fidna wada dhagay waa qabyaaladiista dhagay waa nin nacab dadka gobolka Gado dhagay waxa xalay u sheegay Axmed Madoobe waligay waxa raadinaya fursad aan reegado ku helo maanta ana ku haystaa buu waxaan uga mahad celinayaa buu ra'iisul wasaare Roble oo fursadaas siiyay iyo adiga oo ku soo tala bixiyay xalay wuxuu la kulmay sirdoon Kenya oo Kismaayo kala kulmay warqad intaas leeg baa loo dhiibay oo ka kooban 14 page yaa loo dhiibay oo ah in uu burburiyo heshiiskii 17 September isla markaasna uu joojiyo doorashada gobolka Gado ka dhacayso asagoo uga faa'iideysanaya qodobkan dheeraadka ah oo heshiiska lagu daray waxaan ka digaynaa heshiiska inaan la burburin waxaan ka digaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan Soomaaliya iyo shacabkeeda lagu xambaarin wax aysan astaahilin waxaan ka digaynaa shacabka gobolka Gado oo hore wax u tirsanahay in aan maanta meel fog la geynin waxaad ogtihiin dadka reer Somaliland meel gooni ay taagan haddana ayagoo oo diidan dawladda Soomaaliya ayaa doorashadooda si xalaal ah loogu qabtay war annagoo Soomaaliya joogno oo har iyo habeen u dhimanayno oo Soomaalinimada ogal oo xuduud difaacayno oo dadka naga loo laynayo Soomaalinimo darteed yaa dhagayna loo soo diray dhagay dhag ma leedahay war dhagay oo dhug yeelo fidna wada tahay annaga dhagay dooni mayno dhagay haddii uu isku dayo waxa uu wado wixii uu nagu sameeyaan ognahay idaanadii uu noo geystay oo qurbaha uu noo geystay wallaahi billaahi dhagay iyo kuwa soo dirayba inay natiijo wanaagsan kala kulmayn halaag iyo hoog ayaa ka dhici doona Soomaaliya haddii la isku dayo in garbaharay doorashada la daba mariyo wallaahi thumma wallaahi Sheekh Shariif sidoo u dhaartaan u dhaaranayna caaw war annaga dhiig ma lihin miya Soomaali ma lihin miya war Kenya na laynayso oo shabaab baan laynahay oo dhagay baan loo soo diray maxaa naga la dimacsan yahay Soomaaliya miyaanan ahayn dad Soomaali ah oo dalka xaq u leh ma waxa la rabaa sida gobolada Ukraine ee Ruushka u goostay in aan dalkan ka go'no oo wax maanta aanan astaahilin ama naqabanin ay Soomaali nagu xambarto waxa ka digaynaa oo aan sheegaynaa oo ku celcelinaynaa heshiiska hadda la jabiyo la duleeliyay yaa la sii duleelin heshiiska laga soo noqdo qodobka dhagay la yiraahdana laga saaro aad baa u maasantii wabillahi tawfiiq